بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo laba qodob runtii muhiima degmada u muhiima mid waxa weeyaan cashuuraha oo dadkii hantida maguurtada ahayd inay soo bixiyaan cashuurta waxa weeyaan wax loogu qonayo horumarka imika degmada ka socda waxa lagu bixinayo waa cashuuraha marka si horumarku noogu socdo oo magaaladu inoogu qurux badnaato dadweynaha reer Salaxley dibadda iyo gudaba meel ay joogaan waxaan ka codsanaynaa inay soo bixiyaan cashuurta si wax loogu qabto runtii markastoo cashuurta aad soo bixisaan insha Allah waxa badan doona wax qabadka runtii waan aragtaan waxa ka socda horumar waxaan ku qabanaa waa cashuurtiina waxaan ka codsanaa dadweynaha inay cashuurta soo bixiyaan dadka bixiyo way mahadsan yihiin inta ku hadhay wax ka codsanaa soo bixiyaan cashuurta qodobkaas waa mid qodobka labaad waxa ka hadlayaa waxa la bilaabi doonaa insha Allah dhawaan Tombolenkii magaalada Tombolenka waa magaalo markay magaalada meel tahay waxa magaalo ka dhiga waa Tombolenka ilaahay mahadi waxay soo socotaba maanta inoo suura gashay inaynu helno imkaaniyaadkii lagu suura gelin lahaa qorsheynta waxaan raadaa Tombolenkaas marka waa diyaar isagana waynu qabanaa insha Allah sabti ama xad u bilaabi doona iyagana waxaan ka codsanayaa dadka degmada inay soo dhaweeyaan oo arrinka ay nagala shaqeeyaan cid kasta oo ay qusaysan nagala shaqeeyaan kulli marka hawl la qabanayo hawshaasi waa dhinacyo badan ay ka socotaa cid kasta oo ay qusayso haday yihiin dadka deegaanka odayaasha dadka hantida kule degmada dhammaan nagala shaqeeyaan qorsheyn Tombolenka codsiga labaadna soo jeedinaya aadna wad mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.